إن شاء الله waxaan u bilaaban doontaa muxaadaradii magaceedu ahaa faham alxayaat ama garashada noloshu waxaana soo jeedinaya Mustafa Xaaji Ismaaciil marka waxaan ku soo dhaweynaynaa akh Mustafa Xaaji Ismaaciil iyo muxaadaradii faham alxayaat إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في العقيدة waxaan isku dayi doonaa haddii alla yidhaahdo subxaana wa tacaala inaan kelimaad ka idhaahdo mawduuca si loo bixiyey fahmi alxayaa ama nolosha iyo fahamkeeda garashada aynu garanno noloshan adduuniyo iyo waxaynu ugu nool lahay waxaa ka ratibmaya acmaasheenna iyo waxaynu la qasdinayno nolosha oo la gartaa waa arrin aada u muhima waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaabi illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu alayh waalihi wasalam ah oo aan aada u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaa mawduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaana wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifatullaahi fi lard ama inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkiiee qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina acradna alamaanata cala asamaawaati waalard waaljibaala faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaanu inahu kana daluuman jahuula waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowraya oo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan fa abayn ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala dabeetana insaanku uu xambaaray ama se uu aqbalay diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale ee fa abaadii ilaahay ibliis uu ku tilmaamaya lama nooc ah waayo ibliis amar baa isaga la siiyey laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin ina caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa loo soo carday waa loo soo bandhigay iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo deetana wuu diiday
ومد لبادة إبليس يسوي استكبارا بودي ذي يسلويني لكن يجا إلهي وحلاه فاشفقنا منها iyagoo istisqaaran bay u diideen iyagoo isdhul dhigaya oo warkaya inaanay qaadi karaynin insaanku se wuu qaaday shaygaasi ammaanada insaanku uu qaaday waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxal siiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen سوف إلهي سبحانه وتعالى قرآن كي سكت المامية ثم استوى إلى السماء وهي الدخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين يبقى مطيعين وعابدين لله سبحانه وتعالى سوف إلهي سبحانه وتعالى قرآن ككت المامية إن ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس كوا صور دمي الله يعابدين تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إذن كون كور دمي إلهي بعابدين سبحانه وتعالى وما حيوحك يجد سيء هذا حوكك قد سيء ما ينو عاقل يهي سوف القرآن كتلمام يماها نولك لو الدنيا كن نولو عقل لين الجيران بل قصة سليمان سوف القرآن كينو تلمام يماها إن شمبر وكسو الرميي ملكة الصبا هي قضايات كيدي يردن يا إلهي غير كيني عابدن يا وحاس يردن يعني إنه فهم ما حوله يا ومن حوله gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay wuxuu dhan inuu wada garanayay bal isagoo hududku tilmaamaya maaha yani miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayay kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayaan waxa soo dhamay maxaa hadda insaanku uu ku soocan yahay ma inuu sida kuwan gaaladu yiraahdaan xayawaan ijtimaaci yahayba ma xayawaanada ijtimaaciga caalamka way ku badan yihiin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxdad doorasho oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantahay oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysataa ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku waa hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxa alle subxaanahu wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri washar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiican ee la isugu nimceeyo ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee la isu itixaamo dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee la isu itixaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu ku tilmaamayaa
alxayaati اdunya bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo. waa ka alle qur-aanku leh subxaanaه wa tacaala wahuwa aladii khalaqa الsamaawaati wاlأrضa fi 6 أyaam wakana carshuhu calى اlma liyabluwakum ayukum axsanu camala alibtilaa aw alimtixaan. in la isku itixaamo ayay samadan iyo cirkan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhami u dhisan yihin. waxaan leenahay waxaa cilaaqada insaanka iyo zamanka ka dhaxeeya ee geeri iyo nolol iyo tatawurkan tirada badan le bini aadamku marayo waa dhammaantii waxaa loogu talagalay aladii khalaqa almawta waalxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala insaanka wuxuu ka dhigay mid fahmaya kownkan uu ku nooliyay oo samiican basiiran buu ka dhigay. inaa khalaqna alinsaana min nutfatin amshaajan nabtaliihi baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala in la itixaamo daraaddeed. bale waxaynu leenahay caalam lgayb iyo caalam shahaada baa ilaahay nolosha u qaybiyey. wax la arki karo iyo wax qayb oo maqan. waxa sida looga dhigay in bini aadamka la itixaamo. hadday wax waliba mushaahada wax walba indhaha dadku uu saari lahaa imtixaanku iska yaraan kari lahaa. walidalik ba maala xadiidka bukhaari haddaynu u fiirsanay kitaab uljanaa'iska uu ku soo arooriyay imaam albukhaari wuxuu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamka ah marka xabaasha lagu rido ee dadku ay ka jeestaan inuu maqlo yacni sanqadha kabahooda inuu dib u maqlo oo dabeetana laba malag ay u yimaadaan oo ay weydiiyaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa wuxuu ka odhanayay. oo hadduu mu'min yahayna waa shahaato ilaahay iyo rasuulkiisaba uu qiro. haddii uu de munaafiqa ama kuwaasi gaalada ahaan laana uu odhanayo waxba ma garanayo oo ay ku odhan doonaan waxna ha garanin dabeetana inay garaaci doonaan. xadiidka maxalu shaahidka aynuga soconnaa wuxuu yihi waxaa lagu garaaci doonaa buu xadiidku tilmaamayaa bimataariqin min xadiid. dabeetana dhawaaqa ka baxa waxa maqli doona man yaliihi hayru haqalayn ayaa maqli doona. wax allaale iyo waxa u dhow oo aan ahayn jinka iyo insiga. waxaan kale xaqaa'iqdaasi xabaasha ka dhacaysa waxay u maqlayaan iyagu imtixaan kuma jiraan. laakiin bini aadamka waa laga qariyey si loogu itixaamo daraaddeed. isagu kuma jiro, isaga iyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nolosha wuxuu u qaybiyey wuxuu qofka bini aadamkii ogaan karo iyo waxaanu ogaan karin. qiyaamaha dhicistiisii baa ka mid a, waa qofku goortuu dhimanaya ama geeriyoonaya ka mid a. waxyaabahaasoo dhan waa la qariyey. waxa loo qariyey in qofka lagu itixaamo. caalam shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaat lcilmi buu siiyey. samiican basiiran baa laga dhigay, saaxibu fu'aad baa laga yeelay. kuwaasoo dhan waxa loo siiyey bayn leenahay in la itixaamo. noloshu qaabka ay u dhisan tahay oo dhami bayn leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa. nolosha fahamkeeda xaqiiqiga ahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo. inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato yani ma aha. nolosha adduunyo waxaa loo joogaa ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira. imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo. si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya, jawaanib shahwaaniya. waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl, boqortooyo jacayl, sultaannimo jacayl, waxyaabahaas oo dhan. waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey. qofka bini aadamka waxaa alle subxaana wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi karaa dhibta, gaajada, xanuunka, murugada, baqaha, tiraanyada, werwerka, waxaasoo dhan inuu dareemo. waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu baqo, tiraanyoodo, werwero, murugoodo. waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxa laga dhigay inuu qaabiliya inuu leeyahay waxaasi inuu dareemo. kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka
ku sababi lahaa inuu dareemo. waxaa ilaahay subxaanaه watacaala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu الshahwaati min الnisaa wاlbaniin wاlqanaطiir اlmuqanطaraةi min الdahabi wاlfidaةi wاlkhayl اlmusawamaةi wاlancaami wاlxarf dalika mataacu اlxayaaةi اdunya. waxaa ilaahay tilmaamaya nolosha gebigeeduba xataa caruurta la dhalayo waxoo dham inuu imtixaan yahay. wاclamuu anama amwaalukum waawlaadukum fitna. waxaa alle subxaanaه watacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyey oo dhami inaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. waxaan leenahay markaa shaksiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamkaa iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamkaa. xayaatu linsaan baynu leenahay markaa haddaynu rabno fahmi alxayaati اdunya min awaliha ilaa akhiriha waa imtixaan, waa mashaqa. laqad khalaqna اlinsaana fii kabad ya ayuha اlinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqii laa budda min kabad walaa budda min kadx. noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan. waxaa jirta maalan aan odhan karna alfalsafa alcaalamiya marka la isku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan markay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabku u nooliyey, dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan. maxaa dunida sharku u jooga? waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan Jehovah Witness iyo qolyaha la mid su'aalaha koowaad hadiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weeyaan ilaahay hadduu raxmaanur raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan oo gaajoonayaan caynkan ugu dhacayso yaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaanama ay jecel yihiin inay ku sawiraan sifaadkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ahay. laakiin waxay leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaala oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro ila alkitaab wasunna mooyaane. waxaan leenahay dunidatan inay mushkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaaliin aslan baa loogu qastiyey, waayo waxaa loogu talagalay in laysku itixaamo. waxaan la tilmaamaya subxaanahu wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigay. sababtuna waxay tahay in la itixaamo. wahuwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard warafaca bacdakum fawqa bacdin darajaat liyabluwakum fima aataakum baa ilahay leeyahy. uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun. waxay aayadkaasina tusinayaan xataa mansilati alkhaliifa inay tahay in layna eego bal waxaynu qabanno, in layna itixaamo. waxa bini aadamka loogu yeelay inuu qaab bulsho u noolaado, inuu reer yeesho, inuu xadaaraad yeesho, inuu duwal yeesho. aldawaahir alijtimaaciya waxa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan waxa loogu yeelay in la itixaamo. وكذلك فتنا بعضكم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwo ku kala gedisan arsaaqda, cilmiga, caqliga, xoogga, caafimaadka, quruxda, deeqa, wax kasta kuwo ku kala gedisan si loo itixaamo. waxaan leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in la isku itixaamo. rusush wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ilaa inahum laya'kuluuna aطacaama wayamshuuna fi laswaaq wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala. waa ka aayadda kale ilahay leeyahy naxnu qasamnaa baynahum maciishatahum fi lxayaati اdunya warafacnaa bacdahum fawqa bacdin darajaat liyatakida bacduhum bacdan sukhriya.
mujtamaca waxa loo kala tagsiiyey loo kala tafaraaruqiyey in la isku itixaamo waxa badh qani looga dhigay ee badh faqro looga dhigay ee badh loo curyaamiyey badh dhibtu u haysato in la isku itixaamo waxaynu leenahay bal ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka mid quru ka dhigi kari lahaa waxa midabada loogu kala yeelay ee qabaa'ilka looga kala dhigay ee shucuubta looga kala dhigay inay imtixaankan galaan walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida walakin liyabluwakum baa ilaha yidhi walakin liyabluwakum fima aataakum alla wuu awoodi karayay subxaana wa tacaala inuu umma waaxida idinka dhigo fii kulli ashyaa laakiin laydinkama dhigina waxaa laydinka dhigay mujtamacaat mukhtalaf kala oo kala gedisan oo kala fog sababtuna waxay tahay in la isku itixaamo haddaan weedhan soo koobo waxaan leenahay fahmi alxayaa waa erey iska kooban baynu ku sharxi karnaa nolosha tan dhammaanteed macno kaloo ay samaynaysaa ma jirto allahuma ila alikhtibaar walimtixaan inay tahay mooyaane waa tajriba ibtilaa'iya waxaa qur-aanku uu tilmaamaya ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي بوحليه سبحانه وتعالى وحندكو اتحاميا قاتشو بقى حولياري نفياري وحاصر دبا ولنبلونكم بالله إلهي بوحليه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قفك بن آدم كايلا وحقوق تلقلين لقوا اتحامه بالآلام هدي قاتشتي هدي فقرتي هدي موتي هدي مصائبتي إيا هدي تيدباتوين كبدن إيه ظالمين تصبين يعني ظالمين توحى لقوا اتحامي بالسلطة والقوة وحكاننا إيانا بالصدق واستعمالنا من نوع يقلان اللي أهب وحين لنا مركة إيمانكم ووجهك حقيقك إلا ربا إن لوغة جوابا امتحان كاس هدو لبيا مشكلة دي هينا إن لنا صبره سيدي لوغة بحلحانا إلهي لو تلا صارت الله عمل كله هدو حلوه اتحامي النمعاء سلطان جاهي قرحي وحلا نوعيين ونوع من الامتحانات إن إلهي لو قام هد علي سبحانه وتعالى والله ما هدنقه تجربته هدي بالنعمة امتحانكم هدو بالنعمة يهدو بالنقمة وصوى وامتحانه داد سلطانية حول بدنية النمعائية وحان هيستان ونوع من الامتحان هدي فقرية قاشية ابتلائية مشكلة كنجرة ونوع من الامتحان وجهك كلية وقفكم امتحان كاسيك قدبانا وهدي مشكلتها هنا إنه صبركية وحن ولي ماضه هدي النمعادية برواقدية براراية كانت هنا إنه شكر لي ماضه وحن لا نمرك قفك صابرك على الابتلاءات المؤلمة أما شاكرك كوى على الابتلاءات الممتعة قفك شكر النقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاءك كان يو كسيبتا مركي النمعادة أما بلدس أي ولي ما دان وجهي حقيقي للربين يوجد جوابان سيد درادين waxaan oran karnaa ibtilaa'aadku dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay saani u fahmin dadka badh waxa warwar badani uu ka haystaa qof baa laga yaabaa in mashkilada qabsato ama waxyaabo badan markaas waxa laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan laakiin waxaan leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaat alkamaal albashari wa aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa mooyaane walidalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacad
sacd ibn abi waqaas wiilkiisu waa aabihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaray uu leeyahay waa xasanun saxiix albanina saxiixadiisa uu ku tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mashkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mashkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahay uma alamhal faalamhal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama alaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya fayubtala arajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay leegtay graafka iimaankiisu markuu kor u kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoos u dhacana in ilaahay ka yareeyo fain kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtadda balaa'uh wain kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diinihi buu nebigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu leegtay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanka iyo belada iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintooda u kala badan tahay welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa laga qaada kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way kasii adkaadaan markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo imtixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almu'min kullama irtaqa fi darajaati aliimaan sulami liimaanka markuu kor u koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay usii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmidi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamaya sheikhu lalbanina uu ku raacsan yahay wuxuu nebigu ku tilmaamaya famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khati'a inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ashaddu nnaasi bala'an alambiyaa uma asaalixuun in kaana axaduhum layubtalaa bilfaqr xataa maa yajid axaduhum ila alcabaa'ati alatii yaxwiiha wain kaana axaduhum layafraxu bilbalaa kamaa yafrax axadukum biاlrakhaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in dadka ugu imtixaanka badan le ambiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu imtixaamaa ilaa ayaanu waxba ka haysanaynin cabaa'ada yare u huwan yahi mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaaadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamaya ina cidam aljaza maca cidami albalaa abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay belada weynideeda waina allaha idaa axaba qawma ibtalaahum waliba nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qoom hadduuna alla jeclaado subxaanahu watacaala ilaahay wuu itixaamaa faman radiya falahu ridaa waman sakd falahu sakd cidda raalli noqotana raalli buu leeyahay cidda cadhootaana cadho alla buu leeyahay walciyaadu billah
waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto mas'alada tani waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka tirmidi warinaya oo xasaninaya wuxuu leeyahay idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquuba fi ddunya haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariya dhibtiisa adduunku ku qaataa haddii khayr alla uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogu dhibtiisa oo dhan qaataa waidaa araada lahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama ka alla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo waa loo kaydiyaa si mar qudha loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahay uu gaadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gedisan bay leeyihin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lilrifca watathiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhacaa litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kaana allahu liyadara almu'miniina calaa ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aطayib aayaadkaasi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta ah sidanay yihiin inaan lagaga tegaynin ee la kala saari doono alkhabiisa waطayib laakiin ilaahay wuxuu leeyahay wamaa kaana allahu liyuطlicakum cala algayb qaybkana laydinma ogeysiinayo waana laydinkala saaraya maxaa lagu kala saaraya waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud yacni ibtilaa'aad iyo mushkilaadkaa ku kala baxaysa markay mashkiladu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanaya keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keydii khayrkuun waday mushkiladaa dadka lagu kala ogaaday ama haddii layska wada nimcaysanyo la wada socdo dadku ma kala garto lama kala garto idan haddii la rabo mujtamac in tamxiis lagu sameeyo in la kala soco waa laabudda min ibtilaa'aat waliyabla yani ilaahay subxaana watacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum waxyaabaha laabtiina ku jira iyo quluubtiinu si ay u caddaadaan walayumaxis allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin waxasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun aayaadkaasoo dhami waxay sheegayaan koo waxaynu leenahay lilrifca ثانيا waxaynu leenahay litathiir ثالثا waxaynu leenahay ibtilaaga qofka mu'minkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda tathiiru dunuub way waa xaqaa'iq ku sugan boostaro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalay muxuu tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa ardaydiisii ka mid ah cataa ibn abi rabax buu wuxuu ku lahaa ma ku tusiyaa imra'a min ahli aljanna haa buu yidhi waa gabadha madoowe halkaa joogta buu ku yidhi gabadh suuxdima qabta oo madoowe meel fadhida waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado haddaad rabtana waad iskaga sabri dabeetana jannaad leedahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaayo ilaahay waxaad ii weydiisaa in alla cawradayda i asturo haddaba dadkuunina cawradeeda dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabbaas markuu arko wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mida waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya idan qofku boosaro oo jannaa buu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihiin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaalay tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan usoo galay isagoo aada u xumadoonaya o aada u xanuunsanaya markaasaan idhi bu ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaku wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa
waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka mid isay u xumadoodaan markaasaa waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan inaad adigu laba naga mida ajarkooda leedahay yani maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay ajarkaaguna waa dhebel buu noqonayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik ma min muslimin yusiibuhu adaa shawka fama fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aatih waxuطat canhu dunuubuh kama taxuطu shajaratu waraqaha waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahy qofka mu'minka ah qofka gaalka ah isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay haddaynu nihi ibtilaagu waa qadiya laabudda inay waajahaan gaal iyo muslimba ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn watilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilahay yidhi xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa watilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas gaal iyo muslimba waa lasoo maraya kula numiddu yani ilahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min caطaa'i rabbikin wax laga siinayo laakiin labada qolo laba macno kala gedisan buu ku yihi binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo tarbiya fiican oo iimaaniyo la siinayo iyo ajarka loo kordhinayo markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu yahay waxaan leenahay wuxuu yahay cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa iczaaran intaba wuu yahay iyagana ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahy walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faأkhadnaahum biاlba'saaءi wadaraa lacallahum yatadarracuun umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu watacaala in rasuul loo soo diray ummadaha hore ilahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa inay dhibaato qabsatay waa ummado gaaleed baa dhibaato ku dhacday waayo ilaahay ciladuu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadarracuun idan waxayn leenahay waa lilcilaaj bal nimcadu markay ka badatay inay fakeraan oo ilahay usoo noqdo subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy falawlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum alle wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wamaa arsalna fii qaryati min nabiyin ila akhadna ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun hadday tadarucaa samayn waayaan hadday isdhul dhigi waayaan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaanahu wa tacaala waxaa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo bal siduu ka yeelo lacallahum yashkuruuna yarjicuun ilahay wuxuu leeyay uma badalna makana sayi'ati alxasana xataa cafaw waqaaluu qad masa aabaa'ana adaraa'u wasaraa faأkhadnaahum baktatan wahum laa yashcuruun makaana sayi'a alxasana baa loogu bedela laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatulisti'saal bay gaadhaan markaa isti'saal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo ilahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay markay alla ilaabeen subxaana wa tacaala ee ba'saagii iyo daraagii ay kusoo noqon waayeen ayaa ilahay wuxuu leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kuli shay albaab walba waanu u furay baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala laakiin hadday kaana aqbali waayaan oo ay kibir ka sii qaadaan xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baktatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada dhibta iyo dheefta aragtida qur'aanka waa isku macne labadubana waa imtixaan la eegayo mawqifka aada istaagaysaa wuxuu noqonaya qofka bini aadamkaina noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay mawaaqiftuu istaagay markuu baraaraysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markay dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan waxaynu leenahay marka nolosha dunidu
haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysantahay alibtilaa alxayaati dunya. qur-aanku qisaska uu ina siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka waramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya alsaamiya aw annaajixa fi libtilaa'aat weeyaan. umamka kale uu qur-aanku ka sheekeeyo iyana qur-aanka ku yaalaan waa namaadij ama waa tusaalayaal kaloo bini aadam oo iyana ku saaqiday imtixaankii. التاريخ الإنساني marka waxa weeyaan waa التجربة الإنسانية ama waa ibtilaagaasi qofka bini aadamkii uu soo maray. qur-aanku qisasku inooga warramo oo dhamina waa qolo imtixaankii la mariyey ku guulaysatay iyo qolo imtixaankii la mariyey ku saaqiday. ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka usii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo. waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay. مثلا نماذج فضود oo dulmara haddaan tilmaamo ashad الnaasi balaa'an baynu ku tilmaamnay nabiy llaahi ibraahim calayhi الsalaam abulanbiyaa aabbanimo ayuu tusaale ku yihi. qur-aanku wuxuu inooga warramaya in lagu itixaamay aabbanimo. waa la tilmaamaya inuu ilaahay subxaana wa tacaala marka hore dhasha ka xidhay oo uu gaboobay oo uu da' gaadhay oo isagoo da' uu ilaahay baryay subxaana wa tacaala oo ilaahay wiil siiyey. laakiin awlaaddu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyadana baa ku jira markaa takhasuskan la siiyey oo carruurtiisii lagu itixaamay. ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen. nebiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay uu ilaahay weydiistay inuu gowraco baa la yidhi gowrac. waa imtixaan. nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaa la siiyey oo ilmihuu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo. laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariya ilaahay faraj u furay. waa imtixaan aada u khatiira. imtixaanka aabbanimo ibraahim la mariyey tanoo qura maaha. xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiiskii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey hooyadii uu kaga tegay bayt illaahi alxaraam halka imika oo iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey? waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay. laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan. dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega agee oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag. nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama dega ah dabeetana uu iskaga dhaqaaqay. haweentii way qaadan kari weyday meeshaan cidlada ah ee aan reera deganayn ee biyo oolinee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyoo ku jira la garan karo maalmo dabadood inay go-ayso cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin. ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay yaad nagaga tegaysaa ibraahimow oo u jawaabi waayo iska socday. muddo markay daba socotay su-aal weydiisay allahu amaraka bi haada bay tidhi cidladan aad nagaga dhaqaaqaysa ibraahimow ma allah ku faray? haa buu ku yidhi ilaahay baa faray subxaana wa tacaala. idan laa yudayicna bay tihi haddii alla ku faray haddaa alla nama dayacaye maca salaama yani iska tag. mar haddoo alle amarkii ay tahay banaankaa fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta ilaahay hadduu siaan go-aamiyey nololba siduu alla go-aamiyey ku jirta waanu yeelaynaa bay tidhi. ilaahay subxaana wa tacaala waa taqaanin wuxuu u sameeyey iyo sidaa noloshii loogu fudaydiyey iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya midaynu ku xasuusanno reerkan iyo mawqifkiisii asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhami waxayna xasuusinayaan qadya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah dad sameeyey. waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay. tusaale kale aan idin siiyo
مثلا النبي قال تجربة ابتلائية نبي اللي يرى قروح لغو يتحامي نبي الله يوسف عليه السلام آخره وحكم مرخاتي فردوناو قبل كستي ويل كستو انتو مشكلات دا طريقة دور سومي وايا ابتلاء بالقلية إن قروح ديسي أي فدنايسو خلقة ديسي الله وأبوري سبحانه وتعالى إن فدنايسو ودادكو يسوط المامان إلا حد أي قارسيسي قريقي بغرطوية وكن نولا هوينتي شوكتيني هم قريسو امتحان كانوا فيرسو قفل هايو وقريقا لغو هايو ولليه هاي وشقالاء لكن قبض سيدة القوم ومنصب صار وقروح له وحوالها يستطيع عن كده ويريسو وديدا وتصالح وأهل الشباب ثم القروح بدن بانو نميو دول قالت بانو نميو ميلا لغو برواقيسيا لميو مشكلة دا بدن آخر نبي يوسف باتاقن ومرخاتيه وشاهد كقضية دتان إنه إنسان كهدو إيمان كيسو دم يستريه إنه يسحجين كرايو مهما كثر ما ابتلاء وين كستوى وينادو وحين لنا القرآن كهداد فيرسطه نبي الله موسى عليه السلام هي نبي الله هارون وتصالي بشر كويين ظالم كهرتقيسة وحي تسالي ويهين إن كلمة الحق لقاله هرتقو عد كسته آخر عدة كمر مرصوتات هذا ولا حوق بدنا يولا وينا يواكن على تلمام يا النبي هارون يا موسى نيشوغان يقول عدة الله صادر يا هيد فرعون وما أدراك ما فرعون وانكي انتو دادك يسرت هذا ومد اخذ بدي انا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري بل فرعون حكم كيسو والدكتاتر ان دوني دولي لها ان تاريخ ده عالمي اكبر دكتاتر وكاو قرآن كاو الرمي ويمياء اركتين نين دولة حكومة وشعبك حكومة يقيب كم يكو حكومة اناني رقد عليهم يدري لكو اركتين نين حاكمة ويلادا سيارها قيبة كم يدا يعني ومدى عن حكومه ويل مدى لكران فرعون انتو استاذوا روحي راربر اسرائيل الرق مدى لان سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم رقوا همدو هوين كونا هارو ومع ذلك نبي الله صدر يواجه مشكلة دين تعالي وآخرة تصالح عد والبهر تاجد يعني وحن لأنها هي أنبيضه واستارس أما واحد دقه فبهداه مقتدي قوال النبي سكولي عليه الصلاة والسلام سيد رادي حتى هوينك أنبيضه وتصاليالك قرآنك سيدا وغطحان مركا كل شيء يغا تصالك كل شيء يغا تصالك هوينكو وحنو نقانا نبيكم هينو أمثلة دي لكن قرآن هو تلمامية مواقف أكبر طاغية هوين يسيرت أكته وملكي سيبغر طويدي سيوحي سبك الدور بالده إنه إلهي قولي كان وقدس آسيا هوين دو فرعون قبي وكان الله سبحانه وتعالى قرآن كقوار رمي موقف كيستاكتي ويكدر بديسه بغرطويدة إيا حوله ديانين كان له بأنهارت هوستا إذا مرة سيئ ملك مصرية وحانا هيستاده وحي كدر بدي إنه قال بيت في الجنة وقدسه وحا قرآنك مثال ينسيه هوين كله مريم وحا قرآنك تسالي نسيه موسى هو يدي وحا قرآنك تسالي نسيه للحياة قبل حشانيسة نبي الله موسى إن أنت وما هبله وربي وحا قرآنك تسالي نسيه مثلا هوين ظروف النولولات أي كوكا صبتي إني شقيصه لكن شقادو إناني كان سنين إني حياة جدي كتكته والله بدي هبله ولا لا هاي ونبي موسى ويمي عيلك dadku markuu xaraabsanayaan arigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya markay dad rag uga dareeraan meesha intii weyda way shaqaynayeen haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan way aabahoodna uu gaboobay cid kale oo shaqaysana ma haystaan laakiin
xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin shaqadu kamay tagsiinin aakhira gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxaan inaan sameeyo waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan waa shuhadaa waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaan xukaamta maalan ambiya ilaahay halkan u dhigay aakhira ku markhaati kaci doonta qofku markuu siyaasi noqdaa unbaa suldadu gashaayo waxa kana wuu fasaa ambiya ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa waktiga iyagu maamulayeen alcasru dahabi lilyahuud qoomka yahuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano waxay idhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta wakti ay u yaqaaniin alcasri dahabi waktigii dahabka ahaa waa goorma waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan waa laba nebi sulaymaan aakhiro wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo tajriba buu galay tajribadii hore way ka yaro labaclabac tidhi waa kii fardaha iyo waxay yaro ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay yidhi ilaahay dikrigiisa ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilahu igu itixaam buu yidhi inkaa alla u dhiibay subxaana wa tacaala ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan ciddan ba helin laakiin tii abaalkeed buu mariyey wuu ku guulaystay waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hada min fadli rabbi liyabluwanii waa kan ilaahay fadligii laakiin waxa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen inuu alla itixaamo buu leeyahy inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin waa ka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur ilaahay buu weydiisanaya inuu alla subxaana wa tacaala uu u mahadnaqo idan kullu rajul siyaasi aakhiraysa soo taagay idhaha duruufi siyaasiya ayaa keensatay in caynkan la sameeyo in kan la sameeyo in kan la sameeyo aakhiro ambiya taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka waxaan leenahay amhilatu lfaashiliin nada qur-aanka iyana way ku badantay qowmu caad samuud waxaan qoom qur-aanku ka warramayo o dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey sidaa daraaddeed waxaan leenahay fahmi alxayaa aw alxayaati addunya haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahamno waxa weyaan inaynu u garanno inay tahay daarun lilibtilaa meel la ysku itixaamayo waxaa nolosheenoo dhanna inaad aragto mawqif kastoo aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimi hadduu nimco yahay hadduu barwaaqo yahay hadduu badhaadho yahay hadduu cilmi yahay hadduu aqoon darro yahay wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimi oo lagugu eegayo mawqifka aada iska taagi doontaa kuu noqon doono waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto maalan nabiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka qof kastoo xanuun ugu darani uu ku dhaco tusaale u yahay qiyaamaha waxa loo soo taagaya nebi ayuub oo ku sabray oo tusaale ku ah mashkilada tan inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badato inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi haddaad qur-aanka ku akrido aada maanta isku daydaan qiraa'a jadiida inay akridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo kullamaa diintaadu sii kordhana in imtixaanadaadu sii adkaan doonaan waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa waxaad garan doontaa haddaad nimacaysantay iyo haddaad badhaadhaysantayba inay imtixaan ku jirto haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto dabeetana inay laba mid untay inaad welweliyo kugu dhacdo imaan daroo dunida aada doorato iyo inaad nafta dunida xakamayso o aada aakhiro iyo jannada doorto
الإيثار بالحياة الدنيا أو الإيثار باليوم الآخر والله مدون إلينا وحط المام يا عدة دورتنا عجلنا له ما نشاء عدة تكالات دورتنا إن الله سبحانه وتعالى هو بديه هدي أدقوات بل تؤثرون الحياة الدنيا هداتكم النقطة ما يحبون العاجلة كوا لو كنت المام يكوحدة هداتكم بيرتنينات كوحتي قولنا الدار آخرة وهي ستن لشنا وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أما قولنا لو كنت الماما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا أنفهم من قصدقين رش ظواهرة الدنيا دوي فهمين يصال الله منافعات صده يكون كان له التسخيرية سيدا اللي وقف فايديسته والمنافع الظاهرة في الحياة الدنيا ويقرتين لكن مقاصد دي ما يقرنين وحن كدن بيسي وها إنه شكر النقه مو قرنين أما إنه الصبر لوضع منا مو قرنين إخواتي في العقيدة ما جعلي إن هذا الكيد كبدي وهذا الكهدو بطه نبتي سوسكلي وحن يدكو سوكو بيوم كلمة المحاضرة يدكو كوبنتي وكلمة واحدة نلشأ الدون وحلو بهين نفهمنه وعين نفهمنه إن امتحان كتيرنا قفك هدي امتحان كتيرنا ويوروره وتقانين ويقال أسبوع هذا امتحان كتيرت الدكسية أما جامعات ده هي أسبوع كالسكو مدمتي أسبوع امتحانك بالله ما ضرنا دبادو دكتور دناها كلنا واتكلم نفتا وحسير دم وايو وحتخد إذا مرحلة هنا تؤدي يرجعوا امتحانك ساد نتيجة وكان لهي وحنشعلوا الرسالة دي دينا كوكبناتين يديسوا وجود بيو نلش فهمه وحاو فهمتان إن امتحان كتيرتان امتحان كان هنا مالمها يرى النوشي اللي حدا بيد الصناعة أيات كتيرتان وامتحان جورجا مركز تكون نقطية حاسك وامتحان عرورتاد وامتحان حولهاده وامتحان تعليمتاد وامتحان أقوانتاد وامتحان قروحتاد وامتحان واحد هيستطور دمي واحد استطاعد هيستطور على هذا المنظار كويك هداد حول ليدي هداد فقرتي هداد هداد بكتو يسوران دادكو كاسة روي داد حول ليدينا مود دادك إلى تكسة رود لما دابا امتحان بادكو تشيرتاونه واحد مسكح هذا إن بدأ كو حده جوابت الصحة ساد مركز طوب بحين كاري لهاي ساد سجود دي لهاي دينا الجواب صحة كبحسو نولش على الدنيا قفك مسلم كينين وفهمه ابتلاءات كدتك المسلمين تا كل عيان إنه ودعيان لهذه الأسباب إن دنوب تعالى كغم يره إن منزل الصرع لقو قارسية ويحد إلى مركز السببين يوحل ولا يتخذ منكم شهداء منزلة الشهادة وابوص الوضع هي قفك مسلم كاين لك قارسية لكن يو قاري يهدان دي دقال كدعين والله الله يمين ما هي ما قاري وين دقال دعا وددنا الله يهدي الربابوت شهادين لقارو ولذلك ما إلهي دقالك وحيابه كل سببية وحكم ده وليتخذ منكم شهداء إذن وين إنه أرقنا نولشنا دمينا امتحان كاسين اللي بدأ وجيهن نليي قفك مؤمن كاينو يندن بقالك غميره بوص صراء الجنين قال له كقارسيه سبحانه وتعالى إيه نولشو ده إن لا اسكو برا تمحيس وكل عاي وحي اسكو فهميان كودا كرتيدا ليا كودا إيمان كدبك أي كودا منافقة إن مشكلاتك كان يسكو دح قرطان ابتلاءاتك قوة قالت كل عيانة إنه يمادان للتوجيه لعلهم يتضرعون للإنذار للإعذار أخيرا ضغطة عذابك هلالي دونهم أما بوسكو دا ناريد مركي بوحسدان وحي تعالى وطلق علي مركي بوحسدان اي بوسكو دا تقي دونان إلهي وحن كبر إياه إذنك يا نقبينو ينوافجيه امتحاكاس كوي كوغو ليستنا الله سبحانه وتعالى إنه ينوغدقه وحن دمانتي إنه يدن كل الدردار مياه إن بدننا أخرضان تاريخ ضدتك أنبياء ضي الصالحين تيدك ووناكسن سببتها محي والنماذج تيقو ليستي قفك بني آدم كينا استار كما مارما صحيح هذا النرش مثل بي سقبانته كايرس الرياد هيك ستات سقبانته حتى هو قضية اجتماعية قالوا يفهمتي سياد رادت بلشدة ويلا وصبع يدده هيك سدان واتقانين مانتا dadka waxa loo sameeyay wax nujuum la yiraahdo laguma tilmaamin inay dadiina waxa laga dhigay inay xidigayiin xidiga kubadda cagta xidiga shaneemada xidiga heesaaga nujuum walana nujuumteenu inaga wax weeyaan waa anbiyada iyo mursaliin iyo saalixiin iyo dadkii toosana
kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyahay fabihudaahu muqtadi waxaan idinkula dardaarmayaa si naftiinu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna inaad in badan akhrido bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadka ku guulaystay oo qur-aanka iyo sunnada ka warramayaan iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnada ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ayiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka fircawn iyo namruud iyo kayrkiina waa kuwii ku saaqiday hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwan ku guulaystay kayrkii baa lasoo helayaa kuwii ku fashilay yacni nebi kasta iyo tusaaliya cagsigiisa baad soo helaysaa ilahay waxaan ka baryayaa inuu xaqayna waafajiyo wallahu aclam wabillahi tawfiiq